Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan kuwaasi oo badankood ka dambeeyeen ama horinayeen cadow shisheeye. inkastoo qasaaraha ugu badan Soomaalida ka soo gaaray qabyaaladda, haddana waxaa soo baxay dagaalo la xiriira afkaar diimeed oo hadda u eg inay sii dhamaanayaan. haatan waxay u muuqataa in la soo gaaray wajiga khilaafaad ku salaysan kheyraadka. Soomaaliya wuxuu Ilaahay ugu nimceeyay kheyraad fara badan sida gaaska dabiiciga ah, batroolka iyo macdanta kala duwan sida uraniumka iyo marinbadeed istiraatiiji ah. tan iyo doorashadii madaxweyne Farmaajo, dalka wuxuu galay marxalado cusub oo hordhac u ah horumar iyo isbedel ballaaran oo dalka galo. Farmaajo oo ah nin daacad ah ayaa markii ugu horeysaba wuxuu sanka ka taabtay dawladaha Soomaaliya fargelinta ku haya, kadib markii si lama filaan ah uu go'aan adag uga qaatay khilaafkii wadamada khaliijka, isagoo sidoo kale si geesnimo leh madaxdii dhawaan dalka soo martay looga baran hilfaha u qaaday heshiiskii dhanka badda ee shirkadda DP World, taasi oo keentay in aan ciwaan uga dhigo warbixintan dagaalka maskaxeed ama Sayobis ee ka dhanka ah dawladda Soomaaliya. waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed. dawladaha iyo shirkadaha difaaca caalamka waxay yaqiinsadeen dagaalka tooska ah ee ka dhanka ah wadamada iyo shakhsiyaadka inuu yahay mid adag, qarash badan uu ku baxo. sidaas darteed sanadihii ugu dambeeyay waxay adeegsadeen waxa loo yaqaano Sayobis ama howlgalka maskaxeed. James Coppet waa qabiir Mareykan ah oo cilmi nafsiga ah, waxa uu inoo iftiiminayaa micnaha dagaalka maskaxeedka ah. Psychological operations or PSYOPs are every bit as vital to military strategists today. howlgallada maskaxeed ama Sayobiska waxay sidii hore si ka weyn maanta muhiim ugu yihiin kuwa u xilsaaran qorsheynta military. dhab ahaantii xilligan oo 24 saac lagu jiro qadka iyo isbedelada ku yimaada noocyada dagaalada sida dagaalka warfaafinta. dagaalka noocani wuxuu leeyahay muhiimad gaar ah marka loo eego soo jiidashada quluubta cadowga ama ugu yaraan jahwareerinta iyo nacaska yeelidda cadowga guud ahaan dunida. In winning the hearts and minds, or at least confusing and stupefying the hearts and minds of enemies the world over. howlgallada maskaxeedka ah waa kuwa ujeedadoodu tahay gudbinta macluumaad iyo weliba tilmaamayaal laga soo shaqeeyay si ay saameyn ugu yeeshaan dareenka, ujeedooyinka, fikradaha shacabka ama dawladda, si ugu dambeyntii dhaqankooda iyo awoodda ay leeyihiin wax looga bedelo. tusaale ahaan howlgallada maskaxeed ee Mareykanka waxaa loo adeegsadaa inay wax ka bedelaan ama xoojiyaan danaha military, dhaqaale ama diblomaasiyadeed ee Mareykanka. howlgallada maskaxeed ee Mareykanka waxaa loo adeegsaday dawlado iyo shakhsiyaad kala duwan. Mareykanka isagoo isticmaalaya howlgallada noocani ah wuxuu ku guuleystay inuu jahwareer iyo kala qaybsanaan ku keeno dalka Ciraaq ka hor duulaankii lagu dilay madaxweyne Saddam Hussein. wuxuu sidoo kale u adeegsaday Afghanistan, Cuba iyo wadamo kale oo uu dagaal kala dhaxeeyay. haddii aan u soo laabto Soomaaliya, arrinta cajiibka ah waxay tahay inta madaxweyne Farmaajo uu xilka qabtay waxaa wadanka ku soo batay astaamaha lagu garto dagaalka maskaxeed ee Sayobiska. waxaa xusid mudan in warbaahinta, baraha bulshada, ganacsatada iyo shacbiga caadiga ahba ay howlgalladani ka dhanka ah dawladda fududeyn karaan xitaa ayagoo aan ka warqabin. qof kasta oo horay u bartay ama cilmi baaris ku sameeyay taariikhda howlgallada loo adeegsado cilmi nafsiga waxay kuu sheegaysaa inay iska caddahay in Soomaaliya ay wajahayso weeraro toos ah oo uga imaanayo awoodo shisheeye, waxaana inta badan Soomaalida afka ay ku haysaa Imaaraadka Carabta. dawladda Imaaraadka Carabta oo aad uga carootay go'aanka madaxweyne Farmaajo ee khaliijka ayaa waxay heshiis dhow la gashay maamul goboleedyada Soomaaliya, taasi oo ujeedkeedu yahay in lagu gilgilo ugu dambeyntiina meesha looga saaro dawladda. iyadoo aan taasi weli dhammaan ayaa soo kordhay dhacdooyin isxiixiga oo cid ka dambeysana la garan waayay. qaraxii Soobe oo boqolaal Soomaali ah ay ku nafwaayeen, weerarkii lagu qaaday senator Qaybdiid oo aan ka mid ahayn kuwa la shaqeeya Imaaraadka, iyo wareejintii foosha xumeed ee Qalbi Dhagax. dhammaan arrimahaasi waxay masiibo dhanka xiriirka bulshada u keeneen dawladda, waxaana cad in ciddii ka dambeysay ee ujeedadeedii gaartay. waxaa xigay weeraro dhanka baraha bulshada ah, websaydyo aad looga shaqeeyay oo aad dareemaysid in qarash badan uu ku baxay, kuwaasi oo malaayiin Soomaali ah warar qaldan uga gudbinaya dawladooda. kadibna waxay gaartay
hanjabaado mooshin ah oo ka dhan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kuwaasi oo inta badan guuldareystay balse abuuray kala qaybsanaan iyo jahwareer siyaasadeed. dadku waxay isweydiinayaan xigmadda ka dambaysa go'aanada dawladdu ay qaadanayso, gaar ahaan kuwa la xiriira xiriirka maamul goboleedyada iyo dhanka dibadda. jawaabtu way fududahay. dawladda Farmaajo waxaa ku socda weerar dhinacyo badan leh. nasiib darro, siyaasiyiin Soomaali ah ayaa hoosta ka wado harqaladeynta tallaabooyinka la qaadi lahaa. sidaan hore idinku sheegay, howlgallada noocaani ah waxaa qayb ka ah kooxo badan oo aan isku ujeedo ahayn balse ay midayso lacagta, sida Al-Shabaab, ganacsato iyo siyaasiyiin Soomaali ah. dagaalkan aan jihada lahayn wuxuu madaxweyne Farmaajo ku riixay meel adag. maalin kasta cadowga nagu dhex jiro wuxuu abuurayaa xaalad madaxda dalka aysan ka aamusi karin, haddii ay ka hadlaanna u horseedayso jahwareer hor leh. kani waa dagaal toos ah oo dhanka maskaxda ah, wayna adag tahay habkii ay uga badbaadi lahaayeen dawladda haddii aysan shacabku fahmin dhagarta iyo shaxda fog ee cadowgu ciyaarayo. ugu dambeyntii, daaweynta ugu horeysa ee cudurka waxay ka bilaabataa inaad yaqiinsato jiritaankiisa. howlgallada maskaxeed ama psyopiska ma ahan oo keliya kuwa filimada Mareykanka lagu jiro, ee waa kuwa jira. waxaa hore loogu afgambiyey ama talada looga tuuray madaxda dalal badan, waana dagaalka qarniga cusub. mar haddii la isla fahmo nooca dagaalka aan wajahayno iyo cidda ka dambaysa, waxaa muhiim ah in la helo habkii looga hortagi lahaa. tilaabada ugu horeysa waa inay noqotaa sidii cadow kalkaalka xiran shaarka muwaadinka looga nadiifin lahaa dalka, iyo samaynta nidaam casri ah oo looga hortago dagaalka ka dhanka ah Soomaaliya. magacaygu waa Cabdinaasir Bambe.